shaqadii waa naga gabagabo xoolihii waa la qalay baabuurka u diyaar habaa qaaday hadda waxaa la gudagelaya waqtigii xilligii nadaafadda أحمد waxaa jirta dhuuma xirmay marka oo iyo xoolo banaanka lagu qalay marka maxaa sababay markaasi inay dhuumahan xirmaan waxa sababay habkii hore ee dhuuntan loo dhigay dhulka kala sareyn buu leeyahay biyo inay marka biyo hoosta geeyaan marka farsamadii hore ee meeshan lagu sameeyay ayaa taagtin noqotay mid kale qalab meelaha iska soo daraan oo in dabalada laga furo ahayd meel kaliya oo dhuun kaliya maaduu sameeyay taas marka awday in marka biyaha ama dhiigii meeshan maray uu socon kari waayo marka waxaan ku dadaalnaa inta meesha 2 maalmood gudahood aan ka shaqeynaa ayaa u baxay xogaa ishinka laakiin arigu waa sidiisa wax isbedel ma maamulka ma la xiriireen marka iyo cidii mas'uulka ahayd adiga kaaga sabeysay kawaankan casriga mar hadii ay dhuumihii istaageen gabi ahaanba qaybtii ishinkuna aanu shaqeynayn muddo 2 maalmood runaantii waa la xiriirnay markaas familiyada imika wali lama wareegin hawsha maayarka magaalada ayaa gacanta ku sii haya isagana waan wargelinay una ku guda jiraa sida ugu dhaqsaha badan leynaan oo u diyaariyo mataqaana hawsha u fulino sida ugu dhaqsaha badan Mm-hmm.